إنا سو ديارسة ما إس ديارسة مسكو ديارسة إنا نقطة حاس وناكسن هذا اسكو ديارسة حاس وناكسن ما كفير ستي قفك أد نولش لو ذاقيست محو نقنايا ما أنا أديك بس إنا إسبستيد أنيجي واس ديار شيء وح اسكو ديار شيء حاس وناكسن إنا نقضه لكن يا لا قيب سنة نولش هذو نقض من أنا وحبا بك أقوم بنولش أنا وأنا من سنة هاي سيلا يقرب إنا نولش وح أقبر عسكر وايو لبقى فوكستو اسكوتي ماذا ما أهن معنى هذا إني لبقى فوكستو وح كستا أي قفك القفك اللي كرب إنه كهلاي لكن وحي هدي أنا قال لي هلا أسجع أي كم قيهين سأبري كرا إنه أسجع وح عن كرب إسيو وحي كم يتحاس ونكسن سواها أكون قنيسيد ما أهن حاس ونكسن مركا كلها كلية إن ترادد يعني نينك جعلو وجعلان سا لكن قابك وجعلانيا قابك وكان سنة يعني أنا جعلك وأسجع عن كم مضنا إن سانوكسونا الله سبحانه وتعالى وحسو أبوري إلهي وح كستمركو أبوري وحو كدغ لب يددب إلهي مركو آذن أبوري وحو أغادي إنو سن آذن نولان كرين حاول أنتد مركي حاوي آذن أدونك لكياني والله سبحانه وتعالى وح كستا وبلابا إنو إلهي كان أدونك وح كستا إلهي وأدونك كان لما نهي سيبا الله سعدا that means ما أهن رجونا إننا نولان كران قبلها كل جود قبله هنا ما نولان كران رجل أنتم ولا سبحانه الله سبحانه وتعالى قرآن كسوح كله هاي ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن شيء الله سبحانه وتعالى مركي يعني مركو نوم من الشيء جنايو إله أو أنتوا وحياة كستنا تصو روحوا كله بالفيري على مد ميزان إذن أهين إن أسوء أبورنا رجع يدومركي محد سوق أبورتي الله سبحانه وتعالى ما يسوي ديس الله سبحانه وتعالى وحو سوق أبور رجع يدومركا لتسكنوا إليها إن أي اسكو حسلان إن اسكو دجان كدبنا قال قاعي أن حارس إن لحظة إلهي يقول وصار حريقه سانوكسونا أنا كصومالي مركان هاي كلتشرالي جورك وان جور سنة لكن معنيه يسموه يسوين ما فهم سنين جوري كستوى لسه هاي لكن جوديه بوكو ليه وحضرك ساجبر قروح بدن يويل قروح بدن أو مركي عرفت أسلاذا والله هو سوق المال لبدن ما شاء الله لكن مركي ألف فريسة دقيقات كمية مركي عرفت نبكى أيضا إيش يجنس أما نبكى أساق وإيش يجنايو جورك دم بعدنا عيسى marka guurkeena maxaa naga haleeyay miis weydiina 25 sano dalkeena Soomaaliya uu burbursan yahay ma dhisna sababta koowaad uu dhismilaa ayaa waxa kamid ah faamiladii baan dhisnayn qabiil inta aadan fiirin ha aadan qabiil ha aadan reer hebel baa wax sameeyay laakiin waa inaad tiraahdaa gurigi horta aan ka soo baxay aniga ahaanta shakhsinimadayda gurigi aan ka soo barbaaray guri see abu ahaa gurigi aad ka soo barbaarto aad ka soo baxday ganjeelka iridka aad ka soo istaagtay qaabkii uu ahaa baad banaanka iyo bulshada kula dhaqmaysaa hadduu ahaa guri violence oo markasta dhibaato ka dhex taagan tahay oo markasta muran ka dhex taagan yahay oo hooyadii aabii markasta is haystaan oo familku isna hayn family isku duuban banaanka markaad timaado ma taqaan dadka sida loola dhaqmo waayo background-kaaga wax ka khaldan yahay marka waxaan rabnaa inaan share gareeno maxaa ninka looga baahan yahay maxaa sanaagta looga baahan yahay gabadha looga baahan yahay afwan ninka iyo gabadhiisa xaaska waxa looga baahan yahay qofba qofka kale saan idin sheegay qofba qofka kale inuu priority-ga siiyo marka ninkaaga priority-ga siisid yani qofba qofka kale inuu ka dhigo qofkiisa koowaad haddii aad ninkaaga muhiimadda siisid waxaad ogaataa gabar yahay adigana inuu muhiimadda ku siinayo laakiin saan ogsoonahay muhiimadda waxaan siinaa asxaabta xaajigii baa jooga gurigii buu jiifaa ma kala jecelin banaankan gabdha la fadhiyaa xaafad heblaayaan qaraabo kiilo u aaday asxaab haddii la ii yimaado asagii korkiisa ma kala jecel albaabka u soo riix baan leeyahay waa inaad asaga muhiimadda siisaa priority-ga koowaad markaad asagii muhiimadda siisid kadib adigana muxuu ku siinayaa muhiimaddiisa سأنا أقصدنا الله سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام وحيره الدنيا متاع
فإن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا دو راحو لكن هي راحة أتها waxa qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysto waa qofka hela haweeney wanaagsan. waa meesha hada Englishka aan ka dhahno Englishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of woman. nin kasta oo guuleysta waxa ka dambaysa gabar. that means ninkaaga hadaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabihi carruurtaada. nin islaameed maadan soo saarin. guriga hooyada markaad joogtay wax kasta waa helaysa. maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid? maxaa u soo raadsatay inaad guursatid? haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursatay gabdhayo? secondly guurka aan guursanno annaga Soomaali ahaanta wuxuu ku bees garaysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo. هذا أنتنا هذا أدين ويديو أنا لو محق أقولسته جوابتك وهذا أسينس وحتى أولادنا هلو إذا أنت ولي ما إنك كنت تعجبركم فكرتوا أترنول في عم بعربا نول ونكسن بعربا نورش ونكسن سوي أكتر ما بنقانه أولاد إلهي باكين إمس أنت أقولسته أولادنا سودالين ألف هو ألف كمانان ما أنا هدف كأجي إنها تكون حرتي مرة والبعد جورسنا يصير كو برجع هواي مركا كبحيسد ما أنا نك أنا أورع كذي أولاد بهربا أولاد إلهي باقوسين كرا أصار الزاقة أولاد إلهي باقوسين كرا لكن وأين ترى هذا مركا جورسنا يو وحقوق جورسنا يا نول في عن قف وناكسن إنا هلو وايو قفنا قف كلا جرب كيسة كمان مرة ولاش كمان مرة gabdhaheen wiilashina naga maarmaan laakiin waxaan dhahnaa bariyahan waxa socota arin la dhaho wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. waxaan dhahnaa fiiriya maxaa dhahdeen wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan. gabadh ila qabay ma ahan gabdhaha yarka soo kacay kelmadaas ila dhahayaan gabadh ila qabay maxay leedahay wallahi billaah nimanka Soomaaliyeed nolol ma leh waa la iskala noolna awlaadaas dartoodan kula noolna. isn't it macnaheedu ma ahan gabdhaha hadda soo kacay kaliya inaan ka hadlayo warta la qabo waraysta maxay ku leedahay wallahi ilaahay ba awlaad iga siiya ma ahane awlaadaas dartiisa ula joogay ma bala joogeenba. laakiin wiilasha maxay aada loo saaray ma is weydiiseen have you read yourself adiga ma is akhrisan horta wiilasha Soomaaliyeed romantic yaa ka dhigi kara idinka ka dhigi kara ragga cadaanka ala tartameen oo leenay nolosha wax ka yaqaanaan way fahansan yihiin fine okay separately as ahaan anaga Soomaali ahaan waxaan ku kala duwanahay koritaankeena horta run ahaantii markii laga hadlo markii la korinayay wiilasha iyo gabdhaha looma korin si cadaalad ah. gabadhi baa dhibanayd gabadhi waxay ahayd yani qof mar walba u taagan reerka hanashadiisa. ninka Soomaaliyeed horta reer hanashadiisa waxba kama yaqaan koow markaa guursanaysid taa ogo wuxuu yaqaanaa kaliya in la dhaho bariiski waa dhamaaday baastadan way dhamaato. secondly laakiin mid aan ku eedeena maxay tahay wiilasha Soomaaliyeed naxariisna ma siiyaan wiilasha Soomaaliyeed hadal fiican nagula ma hadlaan wiilasha Soomaaliyeed jacaylna ma siiyaan laakiin wiilasha Soomaaliyeed anaga jacaylka daanasan xagee buu jacaylka uga imaanayaa ba kulata markii hooyadii soo barbaarisay cadaalad darro ay ku soo barbaarisay adigii uu ku qabay markuu ku yimid oo aad albaabka inta u soo riixday aad gabdha banaanka sheeko ula fariisatay xagee uga imaanaysaa romantic inuu noqdo wiil Soomaaliyeed. waa inaad priority-ga asaga siisaa marka hore si uu asagana priority-ga ku siiyo. tan labaad oo mar walba aan sameyn Soomaali hadaana waxay tahay ninkaaga waxa uu jecel yahay mala jeceshaha ma interest garaysaa wuxuu asagana interest garayo absolutely no. ninka Soomaaliyeed seebu ninka Soomaaliyeed interestigiisa markaas siisid wuxuu ku siinayaa adigana interest. for example tusaale waxay jecel yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kale waxa laga yaabaa ninka ku qaba inuu jecel yahay inuu intuu habeenkii soo baxo markuu casheeyo soo baxo oo banaanka fadhiga soo fariisto oo feeling geysto ama ciyaar geysto ama some habits dabeecadaha qaar ragga baa leh laakiin maxaa sameynaa
واسبوسنا أفكا تاجينا قل كتاجينا حنلاقي ها نك ما تنسوي عشان السميناي والله بلا وحني ذي ما بوها يا مكان وحلاقيها بقى أسرع إنترستيجي إني هالكا قشي horta goorma qofka soo jiidan kartaa waxa uu rabo customer-ka u sameeyay wuxuu jecel yahay ku taageer soo ag fariiso markuu TV-ga daaro waa cashita waa soo baxay waxa laga rabay mid waxa rabtay sugays inuu sheekeeyo inuu kula hadlo soo ag fariiso wuxuu daawanaya la daawo bal hadee xuyina ka caayin tartiib waxa tirada waxaan miyaa jeclaatay inaad daawatid hadda ma kula wanaagsan tahay waxa laga yaabaa habeenada u horeeya inuu si kulul kuugu jawaabo laakiin markii aad habeenka ku xiga aad habeen walba inta u timaado tiraadid waxa daawanaysaa barnaamijkaagi maalinka dambe waxa ku fududaanaya inaad qofkaas ka soo jeedisid barnaamijka maadaama adiga aadan rabin sidoo kaleeto ninkaaga mar walba appreciation ma u subisay yani ma u mahad celisay weligaa ninkaaga ma u mahad celisay ما تري لا أنت هذانا كهل لهين عادية وما لين ما يمانت هرك أنا جاري لها هذا أمها سنتها ولي عم يستري موسى وحير اسمه قلنا إن ما يستري ولي قال يعني ما أمها العلسة ما أنت هرك جارسي سنت أساكو سو جارسي صوما وحير hooyada gabadha soo gaarsiisay ayada still shiziyag hooyada markay leedahay waxay ka hadashay hooyadeed laakiin ayada nafteeda caruurteeda wili kama hadleen hooyada way ku soo gaarsiisay saxiix maanta meesha Soomaali markii la dhaho 98 even 100% xitaa hadaan awoodin inaan dhaho 98 ama 99 waxaana soo saaray waa hooyooyin Soomaaliyeed waxa maanta garabkeena istaagay waa hooyooyin ما أنا أبياشن إن لجواي وحي لوجا بعنا لكني وقت بيعلى كل ماي أبياشن وحي أود وكريوين واحد جرت عافمات كمرك لبرانيو حنو الله ده PTSD إن بدن وعلى جهة لا فيلايا وادنا برانتون إن شاء الله PTSD ذو وحنو الله ده post traumatic stress disorder وحكي أنا حنون كاس قف كمركو violence دجال مركو لا كلمه قلبي جاه جبايا قلبي مركو جبا همذي هدفك ولها ودم وبربريا هدفك مركو بربرو مسؤوليتي إيه وحي لقى بهنا وإلاوية even including himself نفتي سمرك لو قدروا أبيش سمعني دجال لا كل من نبى لا كل من رفعت بلا كل من مركي دولة الإسناد مجرن أبى ساقدها أما غير مسؤول لها لكن دلك دجالك مركو بربري كذب أبى كستمحون نقضي إسكا غير مسؤول معاكو كلفة ما أنا أيجي إنه حمادين أبياشي وقت بلا كل ماي الحمد لله هو يوين صوماليات ما حن فيلا يرون أهانتي وأن إنما أنا هذا علين كرين والله العظيم هو يوين صوماليات وإحنا نقدين the heroes of the world جالسين تأدونك وأيو ضلشن اللي بعتن سنة بربرسن وما أنت ولي كنت لجر إنه اسمه وبتصو صاره وإحنا أراس كجر معنا والبا فرحات كجرو وحكينا يا هو يوين كصوماليات بمورال الهان نورسي إن هو يدي صوماليات مركز كمان صبيحي كرت واجب كأها إن عنو جادي soo koriso at the same time inay cunuga tarbiyadiisa ilaaliso marka run ahaantii single mother iyo single father nolosha midna uma wanaagsana waxa garan karo qofkii ku soo koray kalinimo inay hooyada kaliya ku korsato ma helisid jacaylka waalid ma aad u baahnayd inuu aabba kaliya ku korsadana sidoo kale ma helisid dadku waxay u qabaan hadii hooyada ala nooshay aabba ina ka maarantid laakiin ogaada aabba wuxuu leeyahay priority gooni oo Ilaahay ugu talagalay jacayl gooni uu leeyahay qofka maanta ku soo koray family buuxa hooyadiis aabiis walaalihiis uu ka nasiib badan yahay qofka maanta hooyo kaliya korsatay ونا كفر حد بدنيا even moral أهان وكفر حد بدنيا وكأكتف سيء وكوحجات بدنيا مركو أبياش لجمع مارمو هويو يمكن لجمع مارمو هوينك صوماليات أيجا نكوري الحمد لله أبرشيشن مركو مقصود بس نورش أوجدنا هذا كمار من كذا مو ما دعي لسه مر والبا أتكلي جات هاي أما أكهر فريو هديت ما وقعد إكتر إن سوي حسوس السد مركا أتكلي جا هاي نورش أتكون ولد ما أنت نورش فرحة هاي سي مو ما دعي لسه ما تري هذا كذا ما دعي لني فرحة ما أنت ما بهلا أهانتي markaad kelmadda ku tiraad ma ahan ina iska dhahaysid maxay u taraysaa asag mi isweydiis waxay u taraysaa dhiirigelin wuxuu mar walba ku haminayaa inuu san ka fogaan qofkaas waayo wuxuu isu arkay inuu yahay qof wax bedeli kara wuxuu isu arkay inuu yahay qof farxad siin kara laakiin markaan niyad jabino oo iridka markay ka soo galaan ba aan
muran iyo dagaal iyo qaylo aan kala hor istaagno aabaniyad ma yeelanayo xaajigi gurigu ka laabanaya nolol kaluna iska raasna asagna noloshu ka dhacay adigna waa ka dhacaysa la mushkil faa'iido dhan marka idinku ma jirto marka si asagna u badbaadin kartaa adigna isu badbaadin kartaa appreciation waa inaa u suubisa u mahad celin ninkaaga xitaa wax yar xitaa haduusa kuu samaynin sometimes waxa laga yaabaa markaad tiraahdo wallaahi maanta saas baad ii samaysay ma ilaaway waxa ii samaysay wuxuu ku leeyahay waxba kuma samayne adiga muhiimadaadi maahan inuu wax kuu sameeyo ogow ya muhiimadaadu waa in asaga dhiiri gelisaa inuu wax kuu sameeyo brito not now romantic surprise ma diyaarina weligan waxaa idin weydiinayaa laakiin su-aal waana su-aasha keliya oo i wareerisa aniga su-aashaas waxay tahay waay loo dhahaa soomaalida ma taqaana romantic maxaa anaga adduunka naga reebay weligiin ma isweydiisan su-aalahaas dhaqan good exactly haddaba ogaada hooyadan maanta haddaa weydiino dhano hooyadee baa ugu sakaysa hadha hooyo aabbahay farxad ma ku siiye taar iyo maqribku intuu ka dhacay way ammaanaysaa hooyo dhahaysa kuma korin dhaqan romantic ma jirto laakiin romantigi muxuu yahay romantic soomaalida waxay u fahantay ubax la isu keeno jibsi la isu gado daarizin sabrayska nolosha ninkaaga aasisay ma ogtaha naftaada kow inay ka tahay nolosha ninkaaga aasisay naftaada kow inay ka tahay ma ogta romantic horta aa raadinaysa taas kow ma ogta naftaada haddaad ninkaaga siisid waa romantic surprise waayo kumuu seexan kumana u soo tusin inuu adiga ku helo laakiin calaf kadib maxaad u fududaysaa ool jaranjarooyinka uu kuu soo mari lahaa baa u fududaysa soo ma romantic surprise waxay saacidinaysaa labada qof jacaylka iyo kalsoonida ka dhaxeeya inay isu ziyaadaan taada kaleeto understandinga ninkaaga idinka dhexeeya adiga iyo ninkaaga may hashidin gabdhaha codsaday understanding ninkaaga ma fahantaa asagase ma ku fahmaa ma ahan fahanka ninka aan ka hadlaayo inay tahay cuntada uu u baahan yahay uu markuu soo gala aad leedahay shaqadii buu ka yimid waxa weyn cuntadii hala siiyo ma fahantaa ninkaaga wuxuu jecel yahay ma fahantaa ninkaaga wuxuu neceb yahay ma ku fahmaasa asaga hadduusa ku fahmin see u tusi kartaa inuu ku fahmo waa inaa ogaataan horta wax walba adiga markaa bilowdin buu asagana ku dhaqmayaa tusaale waxaa idin ah run ahaantii dumarku waa maskax waxaa ku jirta ilaahay xalkeeda ogyahay dumarku dadku waa yasaan raggu waxaa laga yaabaa dumarku inay yasaan oo ay dhahaan gabar baa tahay wax saa u sii weyn meesha kuma haysid laakiin maskaxda idinku jirta wallaahi alcadiim nagu jirta waa ku maamuli karnaa adduunka maanta haddii naloo dhiibo waqti waxaa jirta rasuulka sal alla alay wasalam uu asxaabtiisa bayca la gelayay quraysh oo yuhuud ahayd quraysh waxay rasuulka condition shuruud kaga dhigtay calayhi salaatu wasalaam يعني حجك سند يعني سند بس واحد جنيسان سند بس واحد جنيسان يعني بيع عادي بشروط أدق يكون حرتا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو يمد وحي بقى يمد حكيري أمر ضدك على إنه حيرتان رسول الله الله حيرته رسولك من بركي وفوله مركز وحده هاي أصحابتك كل جن هلا حيرته ويحناقن أصحابتي رسول الله وأنت قال هذا أمر كود ما فلينه واحد كستدرع ما يلين رسولك أسوي حناقصن بقصة أم سلمة ووجهه جدودين هاي عبرتين هاي بحيث المحاق وقول على رسول الله بحيث أصحاب تيدي بقى ما أنت هذا الآن جديد أنت قلت جاي بقى حيرته مكاسح ما حيرنا له مكاسح رسول الله حناقنه تبناك وبحدت ونك على كل حير جرو ويرتد حيرة رسولك عليه الصلاة والسلام توبة حيب ونك ويرجر وحيرتي مركي أركان رسولك من جد اسكو بلابي كل قد من جد يقول أرضي حتى قارب أساس صراحة حاب أنت قاول جيدا هرت واحد قفك كرب تدبرك هرا أديك رسولك هو نبر عليه الصلاة والسلام أديك وأنا اسكبلو ذا تس marka tustal laazim وكإيمانية قفكاس ورحتى ننكسا oo maanta nagu jiro oo aan waxba fahansanin oo nolosha wax ka aqoon oo dhaga xiran oo markii horena guriga hooyadiis amiirka ka ahaa gurigan markuu yimidna isu qabo inuu wali amiirka yahay adaa bedeli kara simple way
caruurtaada aabba fiican waa u samayn kartaa haddaa adigu ugu talagashay inaa u samaysid marka ma fahamtay ninkaaga waxa uu rabo muxuu jecel yahay in loo sameeyo muxuusa jeclayn ragga qaar baa markay yimaadaan oo shaqada ka yimaadaan waxaysa jeclayn baa layidhi inay hadlaan asalaamu calaykum haye caruurta seeyihiin wuu gelayaa musqusha wuu qubaysanayaa cashaduu cunayaa daaragti go to the bed sariirtu turusu aadaya waxaa laga yaabaa ninkaas inuusan jeclaynba in lalaha hadlo dumarka qaar gabdhaha qaar aa sheekaysano waxaan ku idhi gabar baa beri ii sheegays waxay tihi wallaahi ninkayga waan jeclahay bay tihi aad baan u jeclahaa haye asagana aad buu ii jecel yahay weliba waxaan hubaa bay tihi 99% inuu jecel yahay waan farxay waxaan isiri maasha allah maanta waxaa heshan karo qofka kaliya nolosha ku sixi lahaaba waxaan ku idhi maxaa ku kasbatay abaaya ninkaaga se u kasbatay saa u sugaayey ubax baa u keena iyo waraaq baa u qoro waxay iigu jawaabtay ninkayga waxaan isku dayaa 100% inaan fahmo waxa uu rabo 100% waxa uu rabo xaaladda uu taagan yahay waa isku dayaa bay tiri inaan fahmo suu asaga ii fahmo wuuna ii fahmay bay tiri tusaalahaas ii soo qaatay waxay tiri markuu soo galo ninkayga waxaa iri waa sheekaysanay marka waxay tiri markuu soo galo cashan siiya haye xabiibi saatahay ma fiican tahay fiican waan cashaynaa shib sariirtiisu aadaa faamiladiisa ama asxaabtiisa waxa uu maanta maalinkaas ka dhaxeeyay arrinta buu la hadlaa waxaa laga yaabaa inuu iska seexdo bay tiri yacni inuusan aniga ii sheekeen baan ka wadaa ujeedadeeda bointigayga haye marka waxay tiri waa arkay bay tiri dabeecadiisa inay saan tahay wuu jecel yahay soo maaha ma ka qasin bay tiri markuu seexdo anigana geestayda kala markiinta u tuurtaa waaga markuu bariyo nabadii haye markaas wixii nolol idinka dhaxaysa waa meesheeda waxaan ku iri oo fiiri nin maanta dhan iga maqnaa baa iri oo maanta dhan shaqo ku maqnaa markuu hadda yimi hadduu barkiinta xagga u jeestay maxaa anigu waaba qaylinayaa ku raxan leh waraa adab dirnaa ma hadashid waa saa jecelnaa soo ma laakiin maxay tiri no way bay tiri ninkaaga isku day inaa fahantid haddaa fahantid wuxuu jecel yahay adigana markaas wuxuu kaa dhigayaa period qofka koowaad uu fahmo mar walba taada kale ninkaaga xooji mar walba garabkiisa waxaa u taagan tahay inaad mar walba qof ka soo saartid ninkaaga wuxuu noqonayaa haddaad qof ka soo saartid geesigii birito maskaxiyan xataa wuu u dhismayaa ninkaaga xitaa maskaxiyan haddaa mar walba see u soo saari kartaa haddaad u sheegtid waxyaabaha uu ku fiican yahay ninkaaga meel kasta uu ninkaaga ku fiican yahay u sheeg horta ma ogtahay waxaa ku fiican tahay saas horta ma ogtahay kan iyo kan baa ku fiican tahay deeqsi baa taha waxaan kugu jecla daacad baa taha waxaan ku jecla nin run badan baa taha waxaan kugu jecla nin kalsoonida aad iigu kalsoon baa taha waxaan kugu jecla wallahi aabba fiican baa taha weligii aabba kula mida ma arag weligii nin kula mida ma arag umalayn may gabar aniga ay noloshan inay haysato you see asagii markaas waxay u noqonaysaa strength yani way u ziyaadinaysaa quwaddii ku jirta xataa way ziyaadaysaa wuxuu isleeyahay waa run wallahi ninkaa fiican ma jiro adduunka wuxuu isleeyahay aabba kaa fiican ma jiro adduunka muusey kaa fiican adduunka ma wala helaba soo ma yani ninkaaga mar walba anaga waxaan ka bilownaa rasuulka alayhi salatu wasallam wuxuu yidhi dumarka waxaa naarta u badiyey buu oo u badiyey buu yidhi si kasta oo wanaag aad ugu samaysid maalinkaa khalad ka gashid bay wanaagii dhan hilmaamaysaa markaas waxay soo xasuusanaysaa mistake yarta aa ka gashid daclada weligay wax fiican ba kuguma arag ilaa maalinkaa ku bartay ilaa hadda balaayo iyo dhibaata intaa nagula kor taaganta soo ma exactly for example hadda tusaale waxaa ku ah marka uu rasuulka alayhi salatu wasallam waana xaqiiqo jirta wanaagii ma xasuusano ee nimanka noo falaan laakiin waxaan xasuusanaa weaknesskooda intoodii xumayd xaleena maxaa saa u samaysay wax adduunka aniga farxad kuguma helin imisaan farxad ku siinayo ku leeyahay marka oo waxaan ku siinaya dhanka kacmiya waxba farxad kuma siin maalinkaas wuxuu bilaabayaa farxaddii uu kugu haystay inuu kaa jaro laakiin maalinkii weakness uu yimaado waxaad tiraahdaa qaali maanta maxaasaan isaan weliga kuguma arag dhee intaad dhihilaad iimaada samayn waxaad ku encourage garaysaa ku dhiirigelisaa weliga khaladkaan kuguma arag adoo samaynay maxaa u samaysa maanta markaas wuxuu isleeyahay walaa khalad aada geli jirin baa maanta gasha laakiin markaa sheekada uga bilowna warheer weligay farxadaada ma arag oo maalinkaa ku bartay ilaa hadda dhibaatay problem baa kugula joogaa hadda iyo maalinkaas wuxuu bilaabaya farxaddii uu ku siin jiray awal daacaddeeba ka ahayd cancel inuu kaa saaro oo mid farxad uu siiyo oo kaa raadsado soo marka please waxaan nimankeena ku encourage garayn karnaa ama aan ku xoojin karnaa anagoo u sheegna waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin mar walba
haddaad saa samaysid asagana mar walba wuxuu isku dayaa qalad kasta aad ka gashid ama xumaan kasta aad samaysid inuu daboolo wanaagaaga uu kugu soo celceliyo daacad iska ah mar walba taas way ku wanaagsan tahay waayo waxa weeyaan waxay u wanaagsan tahay gurigaaga haddaad qof daacad tahay Soomaalida daacad waxay u taqaanaa hadda ka hor waa idin sheega daacad waxa loo yaqaan gabdhaha masaakiinta ah oo iska aan kala jeclaan hadduu shan habeen yimaado iyo hadduu hal habeen yimaado iyo hadduu wax keen iyo hadduu wax keen baxlo leeyahay wallahi waa gabar daacad asaguna halka intuu istaagu leeyahay wallahi gabar daacad haysta daacad taas baa daacad xaqaagana dhacso xaqiisana si xaqaagana dhacso kiisana u ogolo oo si markaas honesty baa tahay xaqiyaamin يعني حقيرين وناك سوق سماها كحقيرين إلا حد أديكنا أسمع daacad marka ahow oo mar walba ka run sheegaysa waxa ninkeeda u sameynayso sidoo kale ninkaaga marka isku dhacdaan oo mugdi uu idin dhex yimaado intaad ordilad oo la tashaneed walaasha waa mid dad kuugu dhow sama saaxiibta hooyada hala tashanin asaga isa soo hor fariista xitaa haduu taagan yahay xaaladda sariirta xitaa haduu joogo la hadal waxa tirada khaladkaasan ka tirsanaya aniga khaladkaasan ka tirsanaya maxaa ka qaban kartaa maxaa inoo xal ah ma aan micnaheed inaad aadid khalad baan ka tirsanaya aniga adduun waxa weeyaan furitaan waxaan ahayn oo imaraya male Allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiri agteeda waxa loogu jaceelka badan yahay waa guri islaam marka la dhiso waxa loogu naceebka badan yahay waa markii uu dumaayo guri dumay diiniyan marka ka soo tagtid yu faa'iido u leeyahay waxa maanta halkaan dhoobay guri duman hooyo aaba kala tageen maxaa noo dambeeyay hooyo walba 5 cunug iyo 2 iyo 7 cunug waxay haysatay inay la soo cararto banaanka wax ugu gado Soomaa guri dumay cid uu rooyay ma lahan ilaasho gurigaaga mar walba gabaray oo ku taxadar gacanta midig inaad ku qabsatid gacanta bidixna noloshaada kala ku qabso ninkaaga khalad markuu ka galo inta ku degdeg leedo walaasha ama saaxiibta walaasha waxa laga yaabaa inaysan ogeyn wanaaga ninkaaga uu ku hayo walaasha waxa jirta waxyaabo badan ay og tahay iyo waxyaabo badan ay soo ogeyn adiga kaliya umba og waxa ninka ay adiga idinka dhaxeeyo oo wanaag ah walaasha waa qof kula dhalatay xumaana kula marabto iyo dib markay aragto ninkaaga oo yani hadallada iyo isbedel kula imaanaya maxay kugula talinaysaa naaw basaasu keena wuxuu ku maleeyay inaad tahay waxa kuma malayn ayada wax ka dhigtay walaasha laakiin waxa kuma malayn qof caadi oo khalad uu galaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay adoomadayda waxa u jeclaa qofka intuu dambaaba ka soo laabta dambiga Sooma khalad uu galaa adiga waa khaldami kartaa asagna waa khaldami karaa hadaad noqotaan laba qof oo mar walba khaladaadka iska galan isla sheer gareeya oo mar walba maxaad iga haleysay iyo maxaad ii wanaajisay runaantii noloshiina guul waa ka gaaraysaa laakiin hadii mar walba noloshiina inta isku dhacdaan qof saddexaad u idin dhex yimaado never you will never get a solution waliga xal ma helaysid ugu dambeyn gurigaaga wuxuu noqonayaa guri furinkiisa laga tashaday waayo xumaantiisa iyo wanaagiisa waa laga tashaday sidoo kale waxa jirta waxa aan dhahno waa ku eedanaa ragga Soomaaliyeed caafimaad ahaanna waan idin la wadaagay insha Allah waxaan dhahnaa ragga Soomaaliyeed garasho ma laha laakiin maxay leeyihiin garaasho yani ninka Soomaaliyeed waxyaabo badan kuma garanayo ilaa aad weydiisatid asagii Sooma waxaan dhahnaa muxuu u garan waayay sabab xuniga u garan waayay mar walba ma wuxuu iga sugaayay in aniga wax weydiiyo ma wuxuu iga sugaayay in waxaas u baahanahay muxuu ii fahmi waayay waxa aan rabo Sooma laga yaabaa gabar la qabaa tahay gurigaaga joogtaa arrin baa kugu soo korortay arrinta kugu soo korortay ninkaaga koow hadaad u sheegno aad arrintaas aad timid horta miyuu ogaan karaa waa maya second hadaa u sheegtid xataa waxa laga yaabaa inuu san ujeedo badan ka yeelan oo arrinta marka u bandhigto atraadi niyo saasa jirta yani caawitaan baa ka rabtay laakiin in direct wax u sheegto ma uu ku fahmin wuxuu ku maleeyaa un baranka inaad yani la timid un aad u sheegaysid kaliya bartu kaaga si dhaqaaqay arrintaas ma dhacdaha wallahi I'm sorry anaga marka waxa raadinaynaa inuu ninka dibkina la fahmo faadan familkayga dib ku dhacay dinkayga waxaan leeyahay waa inuu reerkeeni waxa waa inuu dhaasay wax jiraan waa inuu aniga waxaan iyo asaga wada joogna waa in yani raggi badankood garashadii waa ku yar mental ahaana markii loo fiirsho ragga waxa ku badan grey maataga aad ugu badan ragga
annagana waxaan ugu badan white matter wax la maskaxdeena raggu waxay mar walba focus gareeyaan hal shay ma focus gareeyaan laba shay laakiin dumarka ilaahay hooyo ugu talagalay training ba ilaahay baa markore ku soo train gareeyay guri baa joogtaa hooyaa lagugu talagalay caruurtii baad ilaalinaysaa iskuulkii waa u diraysaa asagii baa ka fikiraysaa naftaadii baa ka fikiraysaa gurigiini waa problem ka yimid waa xalinaysaa you see meeqa point aan isku haynaa ilaahay maskaxdeena marka hore laaj buu ka dhiga wuxuu ugu badiyay wax dhow white matterki ayagii waxay leeyihiin ragii hal focus wax labaad kuma dari karaan focuskiisa waa inuu xafiiska tago ku soo waca oo ku dhahayo gurigii maanta maxaa ka dhiman aad tira waxaas ka dhiman that is it he can't focus many things nimanka wax badan ma focus garan karaan soo marka u sheeg u tilmaan ma aan weakness ay leeyihiin waa psychologically ilaahay baa ku abuuray hadduu ninkaaga wax badan garan waaye u sheeg xasuusi qaali waxaas baa garan weysay dheh isa saxaya markaas hadduu nin yani saxan hadduu yahay sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeya mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo beelada gabadha ilaahu risaha qadar rabbiyo adaa baxsha sooma laakiin waxa la idinka rabaa seeninkaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya haddaad u duceyn markasta maqashii markuu baxay adoo shaatiga u xiraya shaatiyaashka u xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ka soo nabad celiyo ilaahay waxaan talaabo kasta oo qaadaysid ilaahay ka dhiga talaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada Allah ku fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada Allah ku fududeeyo you see because of waa maqashinaysa xaalada waliba asaga waa maqashinaysa waxa leedahay ilaahu ninkayga ee xifdi rabbi raxmaan waa ogtahay saa u jeclahay kama maarme oo waa runteed miya ka maarantaa hadduu inta ka tago ku soo laaban waayo maxaa sameynaysaa soo ma wareeraysid waa oynaysaa soo maaha u sheeg ninkaaga yani tus waxaa tustaa inaad sugaysid inuu yimaado soo nabad qaba waxaa tustaa inaad ku faraxsan tahay imaanshihiisa labaad soo laabto maqashii dhagtiisa markay maqashiiso uu banaanka u sii baxay wax kasta haday ku dhacay wuxuu leeyahay xaaskaaga ku soo duceysa waxba kuma dhacayaan xataa maalinka shaqada ka ducada ka hilmaantid wuu ku soo xasuusin doonaa hadda gabdhaha xaasas kale tijaabiya maalinka yani mar walba hadaa u duceysin ninkaaga asoo ku maqlaaya shaqada asoo ku jira markay wax si ka noqdaan oo guriga wuxuu leeyahay wallaahi maanta saasay walaal xasuus waxa tiraa oo sorry maanta ducadii aan ka hilmaama waxa kugu dhacay ducadii aan ka hilmaama asaga markaas haduu nin wax garad leeyahay wuna garanaya ragga Soomaaliyeed wax way gartaan alxamdulillah muxuu ku leeyahay sidoo kale qaal aniga intaan soo laabanayo ilaahay ay ka amaansado already waxa ku kala tagteen laba qof oo isku qalbi foow isuna duceeyay ducadiina marka laba qof oo isqabto kasta marka isu duceeyaan waxay ziyaadaysaa jacaylka iyo maxabada ka dhaxaysa ee hoos uma dhigto ducada mar walba waa powerful waxbay ziyaadaysaa waxba ma naaqiso Allah subhanahu wa ta'ala xadiis wuxuu ku leeyahay xadiisul qudsi ah wuxuu ku leeyahay inna rabbakum tabarakallahu wa ta'ala yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yurduhuma safran Allah subhanahu wa ta'ala wuu xishooda markuu adoonkiisa gacmaha kor u taago oo wax ka baryo wuxuu ilaahay ku xishoodaa in adoonkiisa soo gacmo maran u soo laabto that means ducada ninkaaga u duceysay waa duco maqbuul ah oo laga aqbalayo u ducee kaliya marka salaada marka tukatay u ducee asoonku ogeyn u ducee waxaad arkaysaa gurigaaga oo barakoobay mana taqaan suu ku barakoobay wuxuu ku barakoobay ducada ninkaaga mar walba la garab taagantay ku tababar asaga in la isu duceeyo salaad kasta markuu ka baxo oo jamaacada ku tukado waxaad noqonaysaa marka faamil bulaalay laakiin hadaan bal is xasuusanba oo waxa weeyaan kabta ordaysa iyo karinta ordaysa la soo hor yimaado that is not the life secondly mid kale aan la wadaagay waxay tahay naftaada taas nimanka u sameynaysa Soomaa hadaba naftaada adiga maxaa u sameeyso ma isu qurxisan ninkaaga sida uu jecel yahay ma isu qurxisan waliba gabdhaha Soomaaliyeed alxamdulillah maanta waxa weeyaan kulligan af Soomaaliya fahminaa waxa ay darnaa lahayd yani dadka ajnabi inta ugu jiraan inaan luqad international dadka dhan wadaagay inaan idin wax idin kula gudbinaa waayo waxa la ogaan lahaa daciifkan yarka baa la ogaan lahaa laakiin hadda isku sir qarsanayna Soomaalideena baanaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa
maxaa ka mid ah nadaafadii. gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calafdoon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh. xataa maalinkii ay yani baxayso ay meel aadayso way soo tabal caaraysa waxay leedahay hey bari meel u socda kal risi because she wanted to become beautiful inay qurux badnaatay rabtaa. laakiin markii la guursado hal da maalinkay dhasho war dhashaba ka tag maalinka kow la dhoo uur baa leedahay ama walac u soo galo that is the end of the life. gabadha Soomaaliyeed inay istirtirto ninkeeda mar walba ay isaga dhigto caruusad hadda iyo kow ah waa isku dhamaata habeenka la aroosa ugu dambaysa todobada ay ka baxdo. xal idin ka rabaa marka waxyaabaha dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda. ninkaaga hadaa u hadiyeysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo. soo qurxin ninkaaga. nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha. an-nadaafatu nisfu al-iimaan. nadaafadu maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay. fiiri nadaafadu marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadi. maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihii xaflada ay jiraan aroos baa jira asaalkaas fadhiya inta la soo martid baa la barqaas wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira sama wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda. that means asaga priority ma ada siinba isku ma ada qurxin priority waxa siisay ummadii kale banaanka. haddaba yaa way qofka alla nooshahay adiga ma soo ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay ma ugu talagelin ama shaqo iyo waqti bay kulmisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay ma ilaahay ba u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaagi uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degto oo aad soo jiidatid. maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxin. ninka markuu yimaado maxaa sameynaa for example dhaqamada Soomaalida waxaa kamid ah dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi calaykum see uga duwanaanaya. anaga waxaan sameynaa family-kii oo kale waa weyn Soomaa war xataa joodar yar meel haduu ka leeyahay oo aan la seexan karin yani nolosh moogta waxa laga bilaabaa mar walba meesha u hooseysa ha ka bilaabin dabaqyo hadaan deganahay meesha u hooseysa hadii yani gurigaas dad isgeey aysan joogin oo meel la kala seexdo la waay oo asagii adiga halka joodar idin yaala joodarigiisas iyo go'isas iyo barkintiisas ha ka duwanaado joodariga dad kale isticmaalaan. qolkiisa markaad priority ninkaaga siisid gogoshiisa markaad siisid priority muhiimadda markaa gogoshiisa aad taagtid ninkaaga meel uu ku nasto hadhow markuu yimaado qalbigiisa dhan waa degaya daalka iyo dhibka uu soo marayna uu hilmaamaya. laakiin markuu noo yimaado sariirtii oo gabar kastoo asxaabtayda markay itaan ama reerkayga gabdhihii ila joogay maanta dhan ku kor fadhiyeen oo anigu aan maanta dhan marna geeska uga baxay oo cunugi maanta dhan halka ka orday oo basaasada caana xagga geeska ay ka taala sariirta what kind of life is that. nolosha ninkaaga uu yani markay helaya maxay tahay ma hilmaamaya daalka iyo dhibka uu soo maray ma hilmaamayo. meesha intay uga laba ziyaado wuxuu leeyahay wallahi meesha nolol iyo mataalo wuna iska tagaya. laakiin maxaa laga rabaa inaad priority siisid muhiimadda nadaafadda gurigaaga adigi gogoshiisi awlaadi waa in guriga markuu ninka soo galo ku farxaa nolosha aad ku sugantihiin ma ahan inuu ka xanaaqo ama uu ka naxo markaas ninka uu soo xiisaya guriga imaashihiisa. tan labaad aan sameeyno waxay tahay waxaan sameeynaa mostly gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeedba dabeecadaha kale aan leenahay waxay tahay waan idin sheegay waxa isku guursanaa baan idin dhahay inaa awlaad kaliya iska helno laakiin iskuma guursano nolol inaa isasiirno. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu idin leeyahay quraankiisa wa idha wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu fisaluhu 30 shahra. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu labadaas sano xawleeni kaamilayna noo yiri waxay danta ugu jirtaa baan family-ka oo dhan ee ma aan in cunuga kaliya danta ugu jirto family-ka ninka sabeedan ugu jirta adiga sabeedan ugu jirta cunuga waaba garanna naas baa wax weyn ilaahay baa ugu tala galayba adiga waxay danku ugu jirtaa inaa nasatid. markuu ilaahay 2 sano ku yiri kala weynaysi awlaadaada 2 sano ma ahan sanad kasta inaad dhashid waayo hadaa sanad kasta dhashid waxa dhamaanaya muuqaalkaaga waxa dhamaanaya jirkaaga waxa dhamaanaya maskaxdaada caafimaadkaaga kulli waa soo gabagaboobaysaa. waxaad isticmaalaysaa awood uu isan ilaahay kuugu talagalay inaad degdeg u isticmaashid. dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin haduu ilaahay awlaadana siiyo maxay uga hadlaysaa awlaad ilaahay waa baxshaa alxamdulillah intuu siiyo Allah u barakeeyo laakiin maxaa meesha taala awlaadan sanad kasta aad dhalaysid adiga dan ma ku taha
aaba dhashid muxume sanad kasta hal sano gudahood markaan dhalo hal sano gudahood markaan dhalo I mean 5 sano gudahood markaan dhalo 5 cunug isku xigta oo aan neefsasho lahayn oo sanad kasta ninkaaga goormaa time u helaysaa goormuusa time ku helaya ma isweydiiseen sanad uur baa leedahay sanadna walac baa tahay sanadna umul baa tahay dhowrka bilood u dhaxaysana period baa habeen kasta kugu dhaca soma marka dadka goormay nolol qaybsanayaan horta goorma isfahmayaan goorma nolosha romantic ah ninkan karabti goorma ka helaysaa time ba hadaadan siinba ragga qaar baa waxay jecel yihiin sanad kasta inay dhasho intuu ka fakaraya inuu reer badiyo oo uu ka fakaraya inuu biri magac yeesho la dhaho wiilka reer hebel ah in hebel wuxuu dhalay 20 wiil waxa kaaga fiican haduu ilaahay ku siiyo 5 taas oo si fiican inta u korsatid moral fiican aad ku soo saartid birina mustaqbalkooda ay ku noqon dad u aaya waayo maanta maxaan soo saarnaa 20 caruur oo 20 kuwa jakaraayihiin 20 kuwa nolol aan haysan waxaad maanta waaqaca taagan fiiriya waxaan joognaa dalkan Kenya wadankeena Soomaaliya aan ka soo tagnay waxa arkaysaa cunug yar oo 3 sano jiro ama 2 sano jiro la ordaya maxaan ku dhihi jiray taayir bir gar hadaad dad markaa soo dag ku dakhrayaa caruurta ka 5 jirka agtooda lama mari jirin laakiin halkan wali ma aragtay cunug wadada ordaya wali ma aragteen cunug kasta iskuul buu galaa gurigiisa homeworkisa dadkii waxay isku fahmeen oo nolosha isku fahmeen awlaad inay helaan laakiin awlaadi ina iska dhashid maahan awlaadi ma awoodaan nolol fiican ina siisid ninkii markuu guriga soo galo uu arka buuqan iyo maalin kasta baambar baa dhamaaday caanihi baa dhamaaday cunug hebel baa caaw qufac ku soo booday bari xagee ka aadaya gabar kasta ayadoo 7 dhashay waxa arkaysaa dhiig la'aan inta ku dhacdo ku haysa ninkii baa naagayga daba guursay uma maleeynaysaa inuu noqonayo maxaa ka ku kalifay inuu saa ku noqdo yaa ku kalifay هذا كو كلفاي واي واحد يعني سميسي اولادنا nolol ma siinaysa asagina time uma haysid wuu ardaya qolka kugu dhagan xataa meel fog ma aadayo guriga kugu dhagan gabadha yartoo joogto qolka kaligeed u xiray buuq la'aanta ah baa lagaaga aadaya laakiin gabadhi buuqa badnayd oo 5 sano ah u dhalayso sanad kasta la dhaayna cunuga 2 bilood markuu gaaro ka shar naaska maxaa maanta lagu rabaa marka buuqa ugu batay maxaas adiga isu rabay weeyda markaas waxaan bilaabanaa hooyo kasta inay tiraado wallahi billaah ninka aan islaha meel yani biribu meel kaala soo baxay meelna igala ma soo bixino 8 aan oo dhalay halka ka dhaqaaqa abood alxamdulillah ilaahay awlaad waa baxsha laakiin ilaahay awlaad sida Soomaalida ay yani qaladka fikradda ay ka aamineen ma aha sida ilaahay uu tala galay ilaahay awlaad wuxuu ku dhahay kala weynaysi nolol si farxad si adii asagna nolol isku helay farxad waxaan idin kula talinayaa mar walba xawlayni kaamileen inaa ka dhabaysaan dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin oo anigu naaskayga caano ma lahayn 40 ku iiga go'a say cunuga xawlayni kaamileen inuu jaa 2 sano kaamila adee kugu xiran tahay